waxaan aaminsanahay shakhsiyan qofku intuu yar yahay inuu nolosha ku cadaabmaa inay qayb ka tahay hadhow inuu qof caadi noqdo ama qof meel ka soo baxa noqdo ilmo yar iska cadnaanahoo siduu saaca hooyadii aabihii uga qaadanayay markii dambe iskuul ku dhameeyo jaacad ku dhameeyey hadhow xataa markii wax kale la iska soo dhaafo carruurtiisa wuxuu uga sheekeeya ma hayo muxuu carruurtiisa ku odhanaya marka intaad yar tahay inay kaa baahdo taladu kaa baahdo waliba kaa baahaan noloshu aad dareento sidii noloshii keligaa kula dagaalamayso kale waa qayb ka mid a laakiin ceebtu waa maxay inaad isdhigato waad dhex fadhido war xataa dembiyada ilaahay subxaana wa tacaala diinta meel laba inaguma odhan yahay ma dambaabi kartana ma dambaabin laakiin maxaa laynagu yidhi war dembiga caynkaas ha ku dhicina haddii ay dhacdo boqolaal dembi aad ku dhacdaanna ha quusanin laa taqnaduu raxmatillah inaad quusataabaa dembi sideeda waa weyn oo kabaa'ira meela socotaa marka waxaan qabaa war isdhigashada iyo isdhiibitaanka weeyaan cilladu laakiin inaad baahdo in aad dareento nolosha inay ku karkarinaysaa waa qayb ka mid a koritaankaaga iyo kobcaaga shakhsiyadeed waa qayb ka mid a